wuxuu dajiyay magaalada Riyaad guri weyn oo ayada iska leedahay hanti iyo maal intay rabtay buu gacanta ka geliyay maxay ku heshay istighfaarti ay badisay iyo la hawla wala quwwata illa billah farajki ilaahay dhawdiisa fiir waa gabadha jumca kasta masaajidka tugsanaysa inay noqotay magaalada Riyaad gabadha ugu taajirsan ninka ugu taajirsanaba ilaahay gacanta u geliyay hal qiso oo istighfaarta laga helo qisadan istighfaarta iyo dambi dhaafka ku saabsan waa qiso runtii cajiib ah qof kasta oo muslim ana raad iyo ta'thir bay ku reebi waxa wariyay al-imaam xafiid ad-dusuri wadaad la yiraahdo asagana ku dhacday oo qabsatay arintaas wuxuu leeyahay sheekhaas imaam baan ahaa ardul mamlaka meel kamida masaajid imaamka ahaa asagaa naftiisa warinaya qisada wuxuu leeyahay maalin kasta oo jumco ah haweeney baa imaataa masaajidka albaabka istaagtaa dadkay su'aalataa inay wax siiyaan ilxaax ku celcelisaa weli si shadiid ah in wax loo siiyo maalin walba way jumco kasta imaataa maalin dambaan weydiiyo waxaan idhi islaantan maxay tahay xaalkeeda waxaa la islaanta waa islaan agoomaley ah ka jamcay masaajidka imaataa muslimiinta wax weydiisataa hadda dadku waa iska ibni aadamku wixiis waa iska yaryahay wax maalmihii hore wax la siiyaba maalintii dambe waa laga reebtay wuxuuna markaan khudbadii dadka maalin jumcaha khudbeeyey oon sunnaystay yaa imaamku wuxuu leeyahay meeluu ka baxo meeshii markaan ka baxay fa idaa hiya qaa'ima waaba islaantii oo taagan markaasa waxay tihi imaamkii masaajidka ma adiga ahaa waxay tihi inuu jumcadan imaan jiray dadkan wax weydiisan jiray waa la isiin jiray maanta waxba ma helin markaasaan bal xaalkaada ka warran waxay tihi agoomeeley baan ahay cid ii biisha iyo ii masruuftana ma hayi anigana meelaan ka shaqeeya ma laha wixii maalintaa meesha aan ka helaan ilmaha ku biilaa waa qiso runtii cajiib ah weyn waxaan ku idhi buu idhi inaan aniga maanta wax ku siiyo iyo inuu qof kale waxba ku siiyo macno ma lehe intaadan ummadda soo aadin oodan wax weydiisanin maxaad rabbigaa wax weydiisan weyse maxaad rabbiga iltijaa aad weydiisan weyse waxay tiri buu idhi gabar wanaagsan baan ahay faraaisha waan tukadaa cibaadada waan ku fiicnahay markaasaan idhi buu idhi naseexaan ku siini bal sunnooyinka calayka binawaafil horta sunnooyinka badi gurigaada markaad u laabatana asaga naftiisa ka warramaya gurigaada markaad u laabatana adiga ilmahaada istighfaarta badiya waxaa kalood ku dartaan karira ku celceliya laa xawla walaa quwata illa billah istighfaarta badiya kuna kordhiya oo ku celceliya laa xawla walaa quwata illa billah gabadhi way noqotay ilmihii u noqotay arrintii baa iyadii carruurtii bilaabeen jumcadii dambaa soo gashay buuri waan tujiyey islaantii baan raadiyey waan waay jumcadii labaad baa soo gashay waan raadiyey waan waay jumcadii saddexaad baa soo gashay mayn imaan saddex jumcay maqanta markaasaa wuxuu yidhi xoogaa naftayda waxaan dareemay inaan bal gabadhi raadiyo taleefon baan raadiyey ilaa markii dambe jiiraankaadaan helay dariskii dadkii dariska u ahaa war gabadha bal ka warrama waxaa lay gabadhii way guurtay hadda miskiin bayba ahayd agoonle waxay ku guurtana mayn haysanine maxaa dhacay waxaa la yidhi waxay noo sheegtay imaamka masaajidka inuu naseexo siiye oo uu ku yidhi adiga ilmahaada istighfaarta badiya oo waxaad ku celcelisaan laa xawla walaa quwata illa billaah arrintii bay bilaabeen hal wiik markuu ka soo wareegay jumcadii koowaad oon la gaarinba waxaa u imaaday nin taajir ah wuu guursaday ayadii ilmihiiba wuu qaaday wuxuu yidhi ninkii taajirkahaa baan raadiyey teleefonkiisa ninkii baan la hadlay warwaran nabad gabadha hebla la yidhahda bal ka waran wuxuu yidhi sheekh masaajidka imaamka ka adma adiga ahaa wuxuu yidhi nin yahow waxaa igu dhalatay habeenada ka mid inaan seexan waaye riyaa la igu imaaday waxaa la yidhi gabadha hebla la yidhaahdo ee meel fulaan joogta ilmaheeda ku rafaasa ninkana waa nin taajir ah magaalada Riyaad waa ninka ugu taajirsan buur bal cumuuman wuxuu leeyahay ardul mamlaka ragga ugu taajirsan ee la yaqaano ku jira waxaa la yidhi gabadha ilmaheeda u kaalmee gabadha hebla la dhaho iyo ilmaheeda u kaalmee wuxuu yidhi waaga markuu baryay gaarigaan soo qaatay hooyadana waa isoo raacday cunto dhacaam iyo wax baan isku soo darnay gabadhii baan u imaanay waxaan idhi buuri bal warrama maxaa samaysaan waxay tidhi buuri imaamka naseexa isiiyo wuxuu yidhi guriga markaad tagto adiga ilmahaada waxaad badisaan istighfaarta badiya
laa xawla walaa quwata ilaa billahna ku badbadiya oo ku celceliya arrintii baan bilownay arrintaasaan bilownay oon ku jirnaa ilaahay baana makhraj ka sugaynaa wuxuu yidhi waxaan ma arkaysaan oo cunto iyo aradbac iyo dacaam ah waa irsaaqad ilaahay iniga ina siiyey ilaahay baana aniga isoo qaaday arrintaa aad samayseen baana sabab u ah waatana hooya gacantu ka geliy markaan wuxuu ihi soo laabnay oon aniga hooyada gaariga aan soo gallay bay hooyada waxay tiri buu ihi yaa bunay wiilkaygiyow gabadha waa gabar yar oo da-yar waana gabar cafiifo ah oo gabar dhowrsoon oo diin leh low haddaad guursan lahayd si aad ilmaha oola koriso qalbigeedana aada u kabto maxaana bes waa diyaare orodoo ii soo weydi inay ogoshahay hooyadii baa soo noqotay gabadhii baa u maatay waxay tihi waa diyaar gabadha reerkeedubuu ka doontay waa loo nikaaxay wuu raraa iyadoo dhanba waan qaadi wuxuu dejiyey magaalada riyaad guri weyn oo iyada iska leedahay hanti iyo maalla intay rabtay buu gacanta ka geliyey maxay ku heshay istikfaartii ay badisay iyo laa xawla walaa quwata ilaa billah farajkii ilahay dhawadiisa fiiri waa gabadha jumco kasta masaajidka tugsanaysa inay noqotay magaalada riyaad gabadha ugu taajirsan ninka ugu taajirsanaaba ilahay gacanta u geliyey guri intaa la eg oo intaasoo qol ka kooban xooliyo dhan ba gacanta loo geliyey bisababi istikfaar culays ma ku haystaa deyma ma la kicilaada faqri iyo hanti yari ma lagugu imtixaamay istikfaarta bad hamigaada iyo murugtaadana ilahay meelaad ka baxdo ayuu ilahay ku siinay hada wabillahi towfiiq wasali allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin